قفك مؤمن كاهنو يهي قف واحترى أبي بكر أيام مشركين تمركي أي دبان مسلمين تا أيسير إسكه هجرود أرض الحبشة يميلون كبح مكو كبح برك الغماد ميل لا يدهده مركو مريي أيا وحال كل مين لا يدهده ابن دغنة قبيل قارة لا يدهده أضي عاقل سلطان ووي وقبيل قالت دبتنا أبي بكر بوحكو إلى أين تريد يا أبي بكر حقاك صعطة أبي بكر بوحو أخرجني قومي من هذه البلدة فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي تلقي باي سو صاري ومكايغا سو صاري وحن ربا أن أسيح في الأرض سياحة ذا وحل هذا علماء دي هوري waxay ku tilmaamaan inay tahay qof intuu iska baxay inuu ilaahay uu cibaadeysto meel gaar ah baan ku soconin iska dhaqaaqono meesha daragtaba ilaahay ku caabudo meeshaas kaga tag ay bakar wuxuu leeyahay maka waan iskaga imi waxaanan rabaa inaan iska socdo oo ilaahay dhulkiisa maro oo aan ilaahay caabudo waayo tolkay baa soo saaray u fiirso ibnu daghina waa nin gaaleed oo oday qabiil gaaleed ka taliya wuxuu ku yiri إن مثلك لا يخرج ولا يخرج أديكو كلامو إلى أبي بكر ننتول كي كتجنا متهد نن لصارنا متهد أدناك وما عنتطينا تسكتكتو نن لصارنا متهد وايو أبي بكر وحكولي مركا فإنك تكسب المعدومة وتصل الرحمة وتحمل الكل وتغري الضيف وتعين على نوائب الحق أبي بكر وبولا يادو حطهاي نين دتك فرمرنا وحبها سنين واحتره وهذا يقول نين رحمك يا قرابة يا طلق حديد يا حجال بحريرية وهذا يقول يقفك علوس يا مدين أمام مج أما وحلاها يستو قف كرجع عليسك وهذا يقول مرتدى قف صورة وهذا قف وجر جاردت كنوائب الحق أبي بكر مركا وحكوسي فيني قف بني آدم واحترقوحي وقبن شرودن وقبطه وأنا نين مشرك أنك ساقو شيء يعني أبي بكر روحها دتك وأنفع بدن له بالشيء كذا باهن كذا ليته كذا علوس كذا مسافر كول بوحتره ساو قد بولا إنك قيمة هاله بني آدم كسيدا وحطران إلا صار معها أنيقه أيا إيما كان تحيويري أي بكر وسوع عليي مكو كاري سوى يرمدي سينا وطا قريش بيسوي ياري وهذا قريش يدي جيسته أبي بكر وا مكانتي عند أبي بكر تابتاري وتابتي عرفتنا مكانته ده بيسوي احترام يشري ولي بمركون نكو يهاي نين أضيور ركتالية أبي بكر سيبه مكا كويمي إن كستو مركو وقت جوجي برجي صورتي سو مساجد دير كسمايستي نين مركو تكادو آدو إلمية بوها لبتنا قريش بكاشتكوتو وحي هذا أنت إنك يوتجان أبي بكر دمرك يا عرورتي ضدك مو نقف تنينية هل كاس مو ما أنت إنكو هي قرآن آخرينية ده ضدك إنك وين والراعي يعني جرجي سهجر بين هذا دو دوني ينو كشرو يعني مجنجلية ده جرجي سهجر وحدوني يا خصمي marka uu yimi wuxuu ku yiri Abu Bakar waa laga cabanaya anigana waxay isku ogeyn inaad magantay tahay de tolka inaad dhiftano kuwa guriga iska gal Abu Bakar wuxuu yiri ama aan ku soo celiyo magantaadi dabeetana wuxuu yiri Abu Bakar waradna maganimadaada iska qaado anuu mabda'iga waan wadanayaa aduguna free batay maanta laga bilaabo xil kuma saara waxaan uga dan leeyahay xadiisku waa dheer yahay laakiin anigu meeshan u jeeda waa maxay nin mushrik ba Abu Bakar wuxuu uga marxaati ka cayaaygan hatta nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam intaan mucjizaad kan badani ka muuqanin dadkii ugu horeeyay islaama maxay ku rumeeyeen مثلا dadkii ugu horeeyay islaama waxay noqon karaan Khadija kamid ahayd markuu nabigu yimi alayhi salatu wasalaam zamiluni isagoo leh idada oo cabsanaya أيه واحد ترى والله لا يخزيك الله أبدا إلهي ما كن دارته اللي ولقى كهوتشين مايو وايو قف احترض هيد بيل هذا
intan abi bakar lagu yidhi in leeg bay ku tidhi khadiijo waxay leedahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo le waan cabsanayaaba waxay ku leedahay ilaahay baan ku dhaartay rabbi ku hoojin maayo sababtu waxay tahay waxaa tahay mid kaa waxaysan wax siiya tii qofkii qaraabaa xidhiidhiya qofkii culays haysta culayska ka roga qofkii marti soora yacni bulshada qof wax ku tarabaad ahayd bay leedahay saa daraaddeed ma suurtagal aha in ilaahay subxaana wa tacaala uu ku hoojiyo taasi waxay sheegaysaa muslimiintii hore noocay ahaayeen ambiyadii nabiyullaahi moxamed noocuu ahaa abibakar wuxuu ahaa maxaa dadku ku rumeeyeen maxay dadku u raaceen maxaa looga dambeeyey dad waxtara bay ahaayeen bulshada dhexdeeda dad waxtar ku ah waxtarku mid aakhira ha noqdo ood qofka naarta ka badbaadiso dee waa waxtarka ugu weyn nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii u shaqeeyey waxaa ka mid ahaa wiil yar oo yahuudiya wiil yahuudiya wuxuu ka mid ahaa shaqaalihii nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu xanuunsaday waxaa loo soo sheegay nabiga wiilkii inuu buko oo guriga aabihii jiifo dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo baxay wiilkiibuu soo booqday dabeetana wiilkiibuu la hadlay intuu madaxiisa fadhiistay buu wuxuu ku yidhi war yaa wiilow aslim war iska islaam wiilkii baa aabihii eegay markaa aabihii baa wuxuu ku yidhi markaa atic abalqaasim sala allahu calayhi wasalam yeel waxa uu kuu sheegaya abalqaasim waa nabiga calayhi salaatu wasalaam kunyadiisi dabeetana wiilkii baa islaamay markaasuu nabigu wuxuu leeyahay alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar waxaan mahad u celinayaa allihii ka badbaadiyey wiilka ka naarta ka badbaadiyey aanu gaalnimo ku dhimanin yani nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu gurigiisii uga yimi ee uu gurigaa yahuudiga u tegay ilmahaa yare xanuunsanaya ama wiilkaa xanuunsanaya inuu naar ka badbaadiyo aanu ku dhimanin gaalnimada inaanu ku dhimanin waxay leenahay dadka in wax la taro oo waliba dadku waxtar waxay ugu badan yihiin ugu baahi badan yihiin markay baahan yihiin ama aakhiradooda ha noqoto ama adduunkooda ha noqote islaamnimada macnaheedu waxa weeyaan waa qof bini aadamka oo dhan nicmada la jeceliyo wanaag iyo khayrka waxaa dhacay ilaahay wuxuu qur-aanka ka warramaya qiso suuratu yaasiin qisada ku jirta mu'min suuratu yaasiin nin ayaa ilaahay ka warramay ninkaa ilaahay magaciisa inooma sheegin magaalo u deganaa lama sheegin wax taytaloo watay lama sheegin ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wajaa min aqsa almadinati rajulun yasca magaalada halka u dambaysa nin ordaya ka yimi ninkan magaaladii uu joogay 3 rasuul baa loo soo diray u fiirso qisadan 3 rasuul baa la soo diray 2 la soo diray 3 baa lagu wixiiba waa beeniyeen adigu haddaad joogto magaalo 3 rasuul loo soo diray oo 3daba la beeniyey maxaad yeeli lahayd inta nagu badan waxa dhaw ma nimanka rasuusha diidaaniga aqbalaya soo ka un ma tirahdeen يعني مسؤولية اسمها صارت ما دام 3 رسول بلديدي والله ده ماشي 3 رسول لديدي مشقة كبرنان لكن كان إلهي القرآن كلا آخرنا يا إلى قيام الساعة قصدي سوى حلوه قري وقف اسكت دين ومسؤولية قاضي كافة اسمه أوران 3 رسول بماشي شوقي وحو قرتي إن إسجنا حل ساري أغيران إنه ضدك كوي هذا وروي أن من كان راعي سببتك الراعي سنة واندي شقية وحلي يا قوم اتبعوا المرسلين والرسل الراعب لي وهو حي سببته اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لا بس سببات بو الراعب لي نمكن وحبا إذا كمرة بان مركو هوري بني آدم كهدي يقول هدو يستيرادو نكن يدقالو كوغود دونيا يا كرسو كوغود دونيا يا وحبو أديك كاد دونيا هدا استيرادو وحلقا يمينات هورو الراعين وتلاقي نكن يدنتي سوطا مركا وحلي والرسوشو مركو هوري وحبا إذا كمرة ربطو وامر marka labaadna muxuu ku tilmaamay wahum muhtadun wa hanusayin raaca qisada ma sharxayo laakiin waxaan uga danleeyay inta dambe ninkii dadkii wuxuu leeyahay rususha raaca waa ka may aqbalin isagu tawxiidkiisii buu qartay wuxuu leeyahay anigu nimankaasi xaq bay sheegayaan waan raacay qisada ka muuqata waa la dilay ninkii waa la dilay
ilaahay baa ka warramaya markuu dhintay siduu u fakarayay markuu dhintay aakhira qabtay siduu u fakarayay baa ilaahay inoo sheegaya muxuu ka fakaraya qiila adkhul aljanna baa ilaahay leeyahay waxaa la yidhi war jannada gal qaala yaa layta qawmii yaclamuuna bima gafara lii rabbii wajacalanii min almukramiin tolkii weli wanaag buu la raadcaynayaa wuxuu leeyahay alla jeclaan lahaaye inay tolkay ogaadaan waxa nimco ilaahay siiyey saa dembigu igu dhaafay iyana ha islaamaane yani caqligu bini aadamku inta badan aarsa unbuu ka fekeraa waa kuwii waxaa kugu sameeyay adiguna aakhira u dir ninkan iyagoo la dilay oo gardarra lagu dilay oo saddex rasuul ay beeniyeen oo wuxuu ugu yeedhay ay xaq ahayd oo gardarra lagu dilay haddana ayuu haddana wuxuu ka fakerayaa war nimankii yaa wanaaggaan helay u sheega iyaguna ha raacaane marka waxay tilmaamaysaa qofka mu'minkii inuu yahay dadka qof khayrka la jecel dadka qof raba inay wanaagga qaataan khayrka la jecel